السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال halkani waa shabakada wararka sahan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamkii sidoo kale falanqeynta wararka xaaladihii ugu dambeeyay degmada Balad-Xaawe gobolka Godo dagaal geystay qasaaro isku jira dhimasho dhaawac oo ka qarxay degmada Balad-Xaawe gobolka Godo saameyntu ku yeeshay guud ahaan magaaladaasi Balad-Xaawe sidoo kale wararka naga soo gaaraya magaaladaas ayaan barnaamijkeena falanqeynta wararka idinku soo gudbin doona saraakiisha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku sugan degmada Balad-Xaawe waxay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen dagaalkii sababay qasaaraha isku jira dhimashada iyo dhaawac ee ka dhacay degmadaasi Balad-Xaawe dagaalkan ayaa waxa uu si rasmi ah u bilowday barqanimadii maanta waxa uu na socday ilaa muddo ku dhawaad 8 saacadood dagaalkaasi ayaa guud ahaan waxa uu saameyn ku yeeshay degmada Balad-Xaawe gobolka Godo wali waxa rasaas xoogan oo goosgoos ah laga maqlayaa degmada Balad-Xaawe gobolka Godo halka oo ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo kuwa ka amar qaata wasiirka amniga dawlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaaraya degmada Balad-Xaawe ayaa waxay sheegayaan in tiro madaafiic ah ay ku dhaceen gudaha degmadaasi waxaana gubanaya guryo ku yaala degmada Balad-Xaawe dagaalka ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in uu saameyn ku yeeshay xuduudda dalka Kenya kadib markii ciidankii dhanka ka socday wasiirka amniga dawlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan ay u baxsadeen dhanka iyo magaalada Mandera waqooyi bari dalkaasi Kenya dad goobjoogayaal oo ku sugan magaalada Mandera sidoo kale degmada Balad-Xaawe gobolka Godo ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay ciidamo badan oo ka socday kuwa wasiir Janan ay u soo carareen dhanka iyo gudaha magaalada Mandera ee waqooyi bari dalkaasi Kenya balse ciidanka Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ay door ka qaateen dagaalka oo ay madaafiic ku garaaceen fariisimo dhowr oo ku yaala gudaha degmada Balad-Xaawe gobolka Godo ciidamada Kenya ayaa la sheegay in ay duqeymo kala duwan ay ku garaaceen madaafiic wararka ka imaanaya degmada Balad-Xaawe gobolka Godo ayaa sheegaya in ay sii xoogeysteen dagaalka u dhaxeeya labadaasi dhinac waxaana sidoo kale wararku ay tibaaxayaan in ay jiraan ciidamo kala duwan oo isla markiiba dagaalka intuu socday isku soo dhiibay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan gudaha degmada Balad-Xaawe gaar ahaan halkii dagaalka uu ku socday mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya hogaaminaysa dagaalkaas ayaa warbaahinta la hadlay isagoo faahfaahin guud ka bixiyay ciidankan sida ay isku soo dhiibeen iyo sidoo kale dagaalka halka uu maray iyo qasaaraha ka dhashay سبتوا حذينا وجبيان عدو كانيا هي طبعا في لا سعوني gaadiid laga qabtay waxaa jira khasaaro badan oo loo geystay laakiin guud ahaan waxaa xasiloon Balad-Xaawe iyo xuduudka Balad-Xaawe iyo aaga xuduud beenaadka iyo aaga mas'uuliyadeed ee Soomaalidu nabadu way si buuxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku hay haddeertan guryo badan oo Soomaaliya laga leeyahay gubtay qoryaha waaweyn oo soo dhacay guryaha gubaya iska laha qoryaha waxa soo riday waxa weeye dawladda Kenya waxay ridayeen madaafiic bay ridayeen waxay ridayeen qoryaha mootarka ay ridayeen waxay ridayeen qoryaha sodonka laakiin ma jaxanjaxayaasha geesiyaasha halyeeyada Soomaaliyeed ciidanka qaranka wuxuu awood u yeeshay inuusan dhag u dhigin madfaca afka inuu ka dogo Kenya iyo wixii la socdo dabadhil faasig buuxda inuu jabiyo kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaana faahfaahin guud ka bixinayay dagaalkii ka dhacay degmada Balad-Xaawe gobolka Godo gaar ahaan dhanka xuduudda ah waxa uu taliyuhu sheegay in ay marba marka ka dambeyso ay soo baxayeen in Kenya ay duqeymo kala duwan ay ka geysanaysay goobo ay degan yihiin dad rayid ah sidoo kale shacabka Balad-Xaawe ayaa waxa ay sameynayaan isku soo bax xoogan oo ay ku taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aynu aragno qaar ka mid ah shacabkaasi dadkooda
dabcan sidaad arkaysaan waa qaar ka mid ah shacabkii ku dhaqan degmada beled xaawe gobolka gado oo iskugu soo baxay gudaha magaaladaasi kadib markii dagaalkii uu joogsaday islamarkaana shacabkaasi waxay cabirayeen dareenkooda ku aadan dagaalkii ka dhacay degmada beled xaawe sidoo kale ciidankii la sheegay in ay ka socdeen kuwa dalka Kenya ama kuwa Jubbaland oo gudaha u soo galay magaalada beled xaawe hase ahaatee saraakiisha kala duwan ee ciidamadu waxa ay tilmaameen in ciidankaasi lagu celiyo bartii ay ka imaadeen islamarkaana haatan xuduudda ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay taliyahaasi in marba marka ka dambeysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan nawaaxiga xuduudda islamarkaana ay ka hortagi doonaan wax walba oo khatar ku ah ammaanka degmada beled xaawe ee gobolka Gado waxa uu shacabku ku dhaqan degmada beled xaawe ee gobolka Gado ugu baaqay in ay muhiim tahay in ay mar walba taageeraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysan xaaladihii ugu dambeeyay degmada beled xaawe ee gobolka Gado sidoo kale wararka ayaynu sii gudagalaynaa dagaalka ayaa hadda lagu soo waramayaa in uu ka socdo duleedka beled xaawo waxaana marba marka ka dambeysa rasaas goosgoos ah laga maqlayaa gudaha degmadaasi beled xaawo iyo sidoo kale nawaaxiga dhanka xuduudda ah saaxiibayaal soo dhawaada channelka haddii aad ku cusub tihiin subscribe inoo saara gambaleelka taabta muuqaalka dabcan la share gareeya insha allah haddii aad haysaan xog intaas ka badan ood ku sugan tihiin beled xaawo iyo sidoo kale deegaanada ku dhow nala soo wadaaga wixii aragti aad inoo haysaan mar kale kulanti wanaagsan channelka waa sahanka wararka haddii aad ku cusub tahay fadlan waxaan ka codsanay inaad subscribe inoo saartaan gambaleelka aad inoo taabataan haddii aanu galno wararka kale ee caadiga ah ayaa waxa ay sheegayaan mid ka mid ah musharaxiintii madaxweynaha ahlu sunna wal jameeca ayaa meedkiisa laga helay xerada inji ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug axmed maxamed kooshin oo kamid ahaa musharaxiintii ahlu sunna wal jameeca ka qaybgalayay doorashadii sheekh maxamed shaakir cali xasan ay ku sheegtay in uu yahay madaxweynaha galmudug ayaa meedkiisa laga helay xerada inji kadib markii ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ay la wareegeen xeradaasi kooshin ayaa kamid ahaa dadkii ku helinayay xerada inji hogaamiyaashii ahlu sunna wal jameeca intuu socday dagaalka qaatay labada maalin ee sababay in ay isdhiibaan ciidankii iyo sidoo kale madaxdii ururka ahlu sunna wal jameeca sida ay sheegeen xubno kamid ah hay'adaha nabadgelyada dhuusamareeb kooshin ayaa geeriyooday maalintii koowaad ee dagaalka ciidanka dowladda ay ku qaaday xerada inji ayaa sababay ilaa hadda inta la xaqiijiyay dhimashada laba askari iyo sidoo kale axmed maxamed kooshin shabakada wararka sahan ayaad la socotaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaanu leenahay soo dhawaada dabcan muuqaalka haddii aad ka hesheen noo share gareeya sidoo kale la wadaaga saaxiibadiina kale dabcanna wax ay warar nagu soo kordho aad baad ula socon doontiin waan idin suuragelinaynaa in aan idin soo gudbino sidoo kale meelaha aynu ka helayno xogaa insha Allah iyo sidoo kale muuqaalada markaasi ugu dambeeyay ee la soo dhigay ayaan codadkooda idin soo baahin doonaa si aad u heshaan xogo faahfaahsan oo dhameystiran dagaalka ka soconaya degmada beled xaawe gobolka Gado iyo saameynta uu ku yeesho isku socodka dadka iyo gaadiidka ku dhaqan degmada beled xaawe sidoo kale ciidanka daraawiishta page-ka TV-ga Jubbaland waxa uu qoray ciidanka daraawiishta ee Jubbaland ee ku sugan magaalada beled xaawe ayaa ka hortagay weerar ay ku soo qaadeen ciidamo ay xamar ka soo duushay xukuumadda federaalka oo muddooyinkii u dambeeyay duulaan ku ahaa xasiloonida muddada dheer ka jirtay gobolka Gado ayaa lagu yiri war qoraal oo lagu daabacay TV-ga Jubbaland TV page-ka ay ku leeyihiin Facebook sidoo kale waxa la leeyahay ciidamada Jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyay deegaano hoostaga gobolka Gado sidoo kale gobolada Jubbooyinkaba shabakada wararka sahan ayaa daawanaysaan falanqeynta wararka ayaa saaxiibayaal la socotaan had iyo jeer waxaan diyaar u nahay inaan idiin soo gudbino halka ay marayso xaaladaha ugu dambeeyay gobolkaasi Gado si aad u heshaan xogo faahfaahsan oo dhameystiran dabcan qaar kamid ah aragtida dadka ayaynu aqrin doonaa insha Allah oo ku xiran page-keena sahanka wararka aynu ku bilowno cilmi al wasmiir waxa uu yiri calooshood u shaqeystayaasha halka qabta ayuu yiri Soomaaliya nabad iyo nolol guul ayuu yiri qof lagu magacaabo Faysal Ninweyn Maxamed Cali waxa uu yiri nabar iyo naxadin ha jabaan waa qof kamid ah aragtidiisa cilmi al-Marshaabi marka wuxuu yiri allaha la jiro ciidamada Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah mid kale wuxuu yiri ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ayuu yiri Soomaaliya ha noolaato qof kale oo magaciisa lagu magacaabo Jordan Moha Qurbac Moha isna waxa uu leeyahay
gedo waa dhul soomaaliyeed ciidamada xoogana xaq ay u leeyihiin inay ku sugnaadaan. qof kale waxa uu yidhi oo lagu magacaabo maxamed farmaajo iyo sidoo kale dadka kale waxaan ugu baaqaynaa in ay nabad qaataan. qof kale wuxuu yidhi soomaaliya ha noolaato. qof kale wuxuu yidhi soomaaliya guul iyo gobonimo. qof kaleeto waxa uu yidhi oo lagu magacaabo ilzaam iyo codeeya aan nabad usoo raadiya soomaaliya. waa tahay aad umaadsan yahay. qof kale waxa uu yidhi soomaaliya military fiican ayay leedahay isla markaana xaqiijinaya ammaanka dalkooda iyo sidoo kale dadkoodaba. hagaag shabakada wararka sahan ayaad la socotaan. wararkii ugu dambeeyay soomaaliya caalamka ayaa daawanaysaan. qof kale wuxuu yidhi oo lagu magacaabo jabarti axmed dalkeena waxaa ku dagaalamaya etoobiyaan iyo kenyaan siduu hadalka u dhigay. caashe maxamed waxay tiri soomaaliya guul iyo gobonimo farmaajo ayay tiri. maxamed musaawi wuxuu yidhi waana gaari doonaa ciidan mar walba la dagaalama kenya ayuu yidhi qofkaasi. qof kale wuxuu yidhi oo lagu magacaabo isaaq xasan ciidamada qaranka waa guul. qof kale wuxuu yidhi lagu magacaabo cusmaan mustafe axmed madoobaha lasoo qabta ayuu yidhi. mas-uul axmed waxa uu yidhi ilaahay mahadii weeyaan haddii qayaamiintii madaxda looga hayo. qof kale wuxuu yidhi maxamuud maxamed nabar iyo naxadin balaaye ayay u horseeday gobolka sida uu hadalka u dhigay. meel kastoo aad joogtaan kulan wanaagsan saaxiibayaal. shabakada wararka sahan ayaad la socotaan. wararkii ugu dambeeyey soomaaliya caalamka ayaad daawanaysaan. mar kale kulanti wanaagsan soo dhawaada. haddii aad dabcan ka hesheen muuqaalka la wadaaga saaxiibadiina wararkaad noo heysaan dabcan waad nala soo wadaagi kartaan si aan halkan idinkugu soo gudbino. saaxiibayaal aad baad umahadsantihiin. mar kale waxaan idiin soo gudbin doonaa hadaladii ugu dambeeyey iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya halkaasi ka hadli doonta. haddii ay hadlaana sidoo kaleeto madaxda kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland bartan ayaad kala socon doontaan insha allah. halkan waa shabakada wararka sahan. saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan janaalka daadku cusubta fadlan subscribe inoo saar, gambalelka taabo, muuqaalka like saar, commentiga qaybta inagu reeb, sidoo kale la wadaag saaxiibadaada. intaynu ku kulmi doono tabin caynkan oo kale waxaan ileenahay sidaas iyo nabadgelyo.